fatahaad uu ka sameeyey webiga Shabeelle duleedka waqooyi ee magaalada Jowhar ayaa sababay inuu hakad ku yimaado isu socodka gaadiidka wadada laamiga ee isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Mahadai. Sidoo kale fatahaadda webiga ayaa waxa ay jartay wadada isku xirta garoonka diyaaradaha Jowhar oo xarun u ah ciidamada AMISOM iyo waliba magaalada Jowhar. fatahaadda ayaa waxay baabi'isay dhul beereed ballaaran oo ay ku yaalaan dalagyo kala gedisan, waxaana haatan ay ku sii siqayaan deegaanada Xaanshoole iyo Lebega oo u jira magaalada Jowhar wax ka yar 3 kiiloomitir. boqolaal ruux oo ku nool deegaanadaasi ayaa isu diyaarinaya inay ka barakacaan guryahooda, iyadoo horey sanadkii 2013 ay qoysaska ku nool deegaanadaasi ay ka barakaceen fatahaado ka dhashay webiga Shabeelle. haddii ay fatahaadu sii socoto waxaa suuragal ah inay go'doomiyaan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayuu yiri Cali Axmed Siid oo ah beeraley muddo dheer ku noolaa magaalada Jowhar. ma jiro ilaa iyo hadda dadaalo xoog leh oo looga hortegayo biyaha ku sii siqaya dhul beereed ballaaran oo ay ku nool yihiin kumanaan qoys iyo waliba magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoona dadka deegaanka ay ugu baaqeen dowlad goboleedka Hirshabeelle inay wax ka qabato arrintaani.